bismillahi raxmaani raxiim waxaan kugu soo dhaweynayaa xarunta baafo shirkad ayaa waxay ku weydiisatay inaa xisaabisid kogaas oo ah cost of goods sold alaabtaana iibisay waxa uu ugu fadhiyay meeshan ayaan rabnaa markii inaan ku xisaabino alaabtana way kuu sheegeen oo waxay ku dhaheen waxaan iibinay mobile loo yaqaano Nokia 3310 waa mobile kamid ah mobilada xilli hore aad caan u ahay waliba wadanka wuxuu soo galay saan xasuusta 2002 meelahaas 2003 aad ayaana loo isticmaalay aadna waa loo jeclaay bisha markii bilaabanaysay waxaa la haystay 100 xabo bisha markii dhamaanaysay ayaa baqaarka la tagay waa la soo tiriyay waxaa la arkay baqaarka inuu yaalo 50 xabo waxaad dareemaysaa markaa in meeshaas la iibiyay 50 xabo oo bisha markii bilaabanaysa dee 100 haysteen haddana 50 ay haystaan markii kala goysid meeshaas 50 ayaa kasoo boodayay wuxuu ku fadhiyaa amba lafihiisa ayaa waxay tahay mobilkaas oo shirkadda markii ay soo iibsanaysay ay ku soo iibsatay $10 marka 50 markii 10 lagu dhifto $500 ayay noqonaysaa kogaaska amba lafaha uu ku fadhiyo alaabtaas la iibiyay laakiin waxaan rabnaa inaan bal meeshaan ku xisaabino anagoo formula yar iska fudud isticmaalayno waxaan ka bilaabayaa equal kadibna waxaan leeyahay shirkadda markii bilaabaysay oo ah bishaani waxay haysatay 100 xabo waxaan ka gooynaynaa bisha markii dhamaanaysay inta la soo tiriyay oo 50 xabo ah kadibna waxaan ku dhifanaynaa waxa uu ku fadhiyo oo ah $10 inta wax ka dambeeyo wuxuu soo tuurayaa ya 400 oo meenis arintan arin macquul maahan oo 50 xabo markii 10 lagu dhifto waa inta la iibiyay waxa soo bixaysa $500 waxaan sugahay in meeshan ay ka soo boodo $500 in ay tahay alaabtan la iibiyay waxay nagu fadhiday laakiin taa cagsigeeda waxa soo tuura 400 meenisa marka waxaan qiyaasayaa meeshan in formulada qaabka aan u qoray in xoogaa yar oo qalad uu ka jiro sida adiga barnaamijkan Excel-ka markii laga hadlayo order of operations-ka amba hawlaha sida oo u qabto way kala horeeyaan ku dhifashada iyo kala jaridda mar walbaba waxaa horeyso ku dhifashada kadibna kala jaridda ayaa dambayso oo intaan dambe ayuu wuxuu sameynayaa 50 ayuu wuxuu ku dhifanayaa 10 meeshaas waxa ka soo baxayso $500 kadibna wuxuu ka gooynayaa 100 ayuu ka jarayaa meeshaas ayuu wuxuu ka soo tuurayaa 400 oo meenisa aniga laakiin ma ahan qaabka aariba qaabkaas waxaan rabaa marka hore in 100 uu ka gooyo 50 oo labadan uu kala jaro wixii meesha ka soo baxo 50 oo ku dhifto 10 si meeshaas ay uga soo baxdo $500 si marka aan u hormarsiino qaybtan kala jaridda waxaan ku qasbanahay in aan bil gudaheeda dhaxgelino marka waxaan gelinaynaa intaan ayaan bil dhaxgelinayaa mar walba bisha waxa ku jiro ayuu qabanayaa barnaamijkan Excel-ka kadib ayuu ku dhifashada u gudbayaa sida caadiga xisaabaadkana waa iska sidaas waay oo bisha waxay ku jirtaa la xaliyaa kadib ayaa waxa loo soo jeestaa wixii banaanka yaalo marka wuxuu sameyn doonaa intaan in uu kala gooyo kadibna uu ku dhifto 10 kaasi meeshaas waxa ka soo boodayso $500 oo positive ah amba alaabtan la iibiyo waxa ay ku fadhiday oo loo yaqaan kogaas amba cost of goods sold xarunta baafo waa xarun ku diyaarisay koorsooyin aad u fara badan oo ah ku qaadan kartid galaas oo xaruntan ugu ma kartid waxayna ku taalaa suuq Bakara masaajidkan Abu Hurayra agtiisa daba ku yaala loo yaqaan Bacdo Plaza biyaanada labaad ayaan deganahay meeshaas waxa kugu diyaarsan xarunta agabkeeda oo dhameystiran iyo koorsooyin lagu talagalay nidaamkan galaasyada inaad ku qaadatid sidoo kale xaruntu waxay bixisaa nidaam online ah oo aan ugu talagalnay dadka gobolada fog ee xamar aan soo gaari karin in qaab online ah ay ku qaataan waxa kaliya u baahan tahay waxay noqonaysaa computer iyo waliba qad internet ah in aad haysatid waxaad naga soo wici kartaa taleefankan shaashada hortaada ka muuqdo amba si toos ah noola soo xiriiraysaa amba WhatsApp-kiisa ayaa nagala soo xiriiraysaa si aan faahfaahin kaaga siino qaabka aad jeceshahay in aad xarunta wax uga baratid galaas ahaan amba nidaamkan online-ka aad mahadsantahay